بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت reer berbera waxay isugu soo baxeen yar iyo weynba soo dhaweynta gudoomiyaha guud ee dalada dhalinyarada ee heer qaran ee Sonyo gudoomiyaha Cabdicasiis Saciid Saalax qofka shakhsiyadiisa waxa lagu gartaa dadka ku hareeraysan Cabdicasiis shakhsiyadiisa waxaan ku soo koobayaa labeentii reer berbera cid alla cid u maqan ma jirto intaas taariif ka bixinaysa kumuu yahay Cabdicasiis Saciid Saalax marka inta laga tago waxaan doonaa dhowr kelmadood oo kooban iska soo dhareynaa dhalinyar fara badan baynu ku joognaa xildhibaanaynu ku joognaa mas'uuliyiin xisbi baynu ku joognaa salaadiin baynu ku joognaa marka hadalku inama wada deeqayo goor gaaban areegeed gaaban bay Soomaalidu ku mahmaahdaa xilli duhur baynu joognaa marka waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdi Jaamac oo ku hadli doona dhalinyarada cuslaatay afku صح كل يوم قيد joogtada odaybaan marka laga reebo sultaanka horta marka ugu horeysay waxaan soo dhaweynayaa Cabdicasiis Saciid Saalax oo ah nin aad iyo aad u qiimo badan Cabdicasiis aqoon dheer baan u leeyahay deeraantiisa waan garanayaa waa nin qiimo badan leh xilka yar isagoo haya ayuu gobolkan uu ka soo jeedo wax u qabtay waxaan ka rajaynayaa ilaahay xilka ilaahay inuu ku asturo sidoo hore gobolkiisa ugu shaqeeyay si la mid ah inuu ugu shaqeeyo ugu dadaalo gobolka iyo guud ahaan Soomaaliland waxaan mid labada ku darsanayaan oo kaga faa'iideysanaya sanadkan waxaad moodaa guushiya kulmiyeen wada socdaan marka iminka tusaale soo qaato golaha deegaanka ee berbera 15 waa dhalinyaro golaha kulmiya la hore ma dhicin waxa jirta madax gobolka gebigeeda madaxda gobolka marka laga hadlayo waa niman wada dhalinyaro waxaad moodaa dhalinyarada iyo golaha kulmiya inay wada socdaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن soo dhaweynayna gudoomiyaha dhalinyarada Sonyo waa guul u soo hoyotay dhalinyarada gobolka Saaxil waa guul u soo hoyotay dhalinyarada gobolada bariga Soomaaliland waa markii uu horeysay ee xilka noocan oo kala ah gobolada bariga Soomaaliland ay Hargeysa soo dhaafto ama gobolada galbeedka ay soo dhaafto oo ay u soo gudubto gobolada galbeedka ee bariga waxaanu leenahay hambaliyo Cabdicasiisna waxaanu leenahay dhalinyarada waxa u soo hoysay guusha aad u soo hoysay waa inuu ilaa madaxweynaha soconaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمانسا waxaanu ku soo dhaweynaynaa Cabdicasiis oo gobolka Saaxil ka soo jeeda oo horena gobolka wax uga soo qabtay waxaanu leenahay xilka maanta lagu magacaabay ee dalada guud ee Sonyo ilaahay kugu asturo kuu biqimayno nin halyeeye baa tahay ilaahay idankii waxaanu ilaahay kuu weydiinaynaa in ilaahay kugu asturo anigoo ku hadlaya magaca sulaadiinta gobolka Saaxil aad baan kugu hambaliyaynaynaa adiga iyo xildhibaanada iyo wufuudda kula socotaba aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله سمعتنا بالله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أنا كوها الله أفكا دلنيرada degmada berbera gaar ahaan xafiiska xiriirka dhalinyarada iyo maayirka waxaan soo dhaweynaynaa oo hambalyeynaa walaalkay Cabdicasiis Saciid Saalax waa nin dhalinyaro ah runtii ku sifoobay daacadnimo hawlkarnimo iyo midaynta dhalinyarada degmada berbera aad baan ugu faraxsanahay anoo ku hadlaya dhammaan afka dhalinyarada degmada berbera waxa kaloon doonaya dhalinyarada degmada inta hadhay iyo inta horeba inay Cabdicasiis iyo midharka kale oo jooga wanaagsan ay si fiican ugu daydaan oo ay noqdaan rag daacad sidiisoo kale oo ehludiina oo fisqiga iyo foolxumada aan dhex gelin si heerka wanaagsan u gaadhaan isaguna aad baan mahadsantiin dhamaantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم anigoo ka wakiila maamulka degmada berbera maanta waxa sharaf noo ah inaanu halkan ku soo dhaweyno gudoomiyaha golaha sare ee ururka dalada Sonyo oo maanta dhalinyarada reer berbera guud ahaan ay halku soo dhaweeyeen waxa noo sharafa degmaahan runtii nin degmada berbera ka soo jeeda inuu maanta inoo qabto gudoomiyaha guud ee dhalinyarada Soomaaliland waan ugu ducaynaynaa Cabdicasiis in ilaahay xilka uu ku asturo waxa kaliya mas'uuliyadda saaranay tahay dhalinyarada berbera oo kaliya uma aha dhalinyarada Sonyo ku jirtana uma aha waxa uu mas'uuliyadoodu qaaday dhalinyarada guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa iyo kuwa saylac ku sugan ilaa iyo kuwa laasqore ku sugan waxaan uga rajaynaynaa inuu dhalinyarada jaanisad badan u sameeyo
dhaliilo badan baa Soonyo dul hoganayay waxaan u rajaynaynaa Cabdicasiis dhaliilihii badnaa ee dul hoganaya dalladda inuu ka dulqaado oo afartii qodob uu ololaha ku galay oo bayska ka dhigtay Cabdicasiis inuu afartiiba ka soo baxo annagu waan ku garab taagannahay ka degmaahan ka dhalinyarahan waan ku garab taagannahay waana ku kalsoonayno ka soo bixi doono haddii alla ka dhigo waayo waxaan ognahay waa la tijaabiyey kalsoonidiisa waa la tijaabiyey maamulkiisa intuu ururkii iyo feenka hay'adda waddaniga ee berbera ka dhisan uu gacanta ku hayay mashaariic ay degmada ka fuliyeen waad ogtihiin inta ay leeg tahay hantida ay hay'aduhu ku aamineen labadii sannee la soo dhaafay malaayiin dollars bay tahay maanta uguma baqanayno Cabdicasiis xilkan 54 urur dhalinyaro waxa ka weyn guud ahaan magaca ustaad dhalinyarada Soomaaliland ilaahay kuwa asturo baan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله oo ka mid ah wasaaradda ciyaaraha aadna ay tahay shaqadeedii oo ka shaqeynay Cabdicasiis Ciise hay'adii Soonyo ee dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland wada shaqeyn ma lanay inuu maanta si weyn loo soo dhaweeyo waxa ka muuqata Cabdicasiis dhaqankiisa fiican aqoontiisa cilmigiisa iyo waxqabadkiisa iyo haldoorkii doortin aad baan uga mahad celinayaa Cabdicasiis uu mudnaa ruuxan gobolka Saaxil horumarka waan garanaa dhalinyarta iyo feenko maantana Soonyo uu qaadi karaya misool min sanaag إلى حيسمه هذا نسولو وينيا runtii saaka looma kala hadhin maanta soo dhaweyntii Cabdicasiis Ciise Saalax runtii waa shakhsi ugu qaali weeyaan waa shakhsi ku barnaa runtii isagoo horumarka dhalinyarada ka shaqeynaya maantana horumarkii muddo heer qaran loo wareegay marka waxa leenahay Cabdicasiis waad si ballaaranaysaa heer qaran baad gaari doontaa insha Allah waxaan markaa ku kulmi doonaa maalinta xigtay xilkan ka sareeyo heer qarana aynu insha Allah ku kulmi doonaa waan duceyno dhabaanteeba kulmi roojina insha Allah biidbillah waayahay nin dhalinyarahoo soo dhaweynaha iyo abaabulkaba halis ku ah oo reer berbera ah oo Khabasar Khaliil bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha dalladda dhalinyarta Soonyo dhammaan cidii ka soo qayb qaadatay soo dhaweyntan waan u mahadnaqayaa runtii aad iyo aad bay maanta farxad inoogu tahay inaynu Soonyadii Hargeysa joogi jirtay iyo galbeedkeeda inaynu soo daadejinno oo ay gobolada daafaha u baadhacdo runtii Cabdicasiis waa nin aqoon-yahana waa nin muddo dhalinyarta ku soo dhex jiray waynu ducaynaynaa maanta isaga iyo annagaba hawl badan baa noo taalla waxaanaynu wax ka wada qaban karnaa wada jir markaa runtii aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa mas-uuliyadda culus oo qaaday waanan u ducaynayaa in ilaahay u fududeeyo xilkaas wasalaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii sharaf weyn bay ii tahay inaad soo dhaweeyaan haldoorkii gobolka Saaxil dhalinyaro iyo waayeel gobonnimaan u hayaa runtii ixtiraam baan u hayaa karaam baan u hayaa aad baa u mahadsantihiin sida ballaaran ay soo dhaweyseen runtii berbera dugsigaygii hoose kii dhexe kii sare ilaa jaamacadda meel kale maan iskuul ka dhigan saas daraaddeed waxay noqonaysaa in anugu wax soo saarkii berbera ahay sharaf weyn baan u hayaa magaalada berbera sharaf weyn baan u hayaa dhallinyarada berbera runtiina tababarkii iyo fursaddii waxay jaanis aynugu hellay inaan maanta hoggaaminno dhallinyaradii Somaliland marka hoggaankan dhallinyarada berbera ayaa ila sida ducadoodii iyo codkoodii iyo karaamadoodii intaasba way duldhigeen aad baan runtii ugu hambalyaynayaa uguna mahad celinayaa ka berber ahaan ama dhallinyarada berber ahaan waxayna saaran runtii culays bayna saaran hoggaamintii dhallinyarada Somaliland waxaan rajayn doonnaa anigoo ay runtii golaha ay igula jiraan Ibraahim iyo Maxamuud inaannu gudanno waajibaadka maanta baahiyaha dhallinyarada haysa aan wax ka qabanno ta gobolkan gaar ahaan wax ka qabanno ta Somaliland aan wax ka qabanno inta aan wax ka qaban karno ama kartideenna iyo aqoonteenna ay noo saamaxayso insha Allahu tacaala runtii waan iswaraysan doonnaa aad baan idinku mahadnaqayaa kulankan waa mahadnaq aad baa u mahadsantahin si fiican ee sharafta leh karaamaleedii milgaha leh aad ii soo dhowayseen tana waxay ina tusinaysaa dhallinyarada reer berbera inay mid yihiin inay sharaf mudan yihiin inay yihiin dad wax badan ka xoroobay aad baan runtii ugu mahadnaqayaa aad iyo aadna waa u mahadsantihin faraxyo aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi